السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما صاحبة الصوماليات ملك استوى جوكتان يسكستو عبد الله وليس حلو ونكسن موضوع وحو كسابسن yahay kulan weyn oo xalay dhexmaray madaxweynayaashii hore dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed. kulankani oo ka dhacay guriga ex madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa waxaa looga hadlay ilaa 3 qodob. qodobka koowaad waxa weeye waxa la iska wareystay xaaladda dalku ku sugan yahay xilliga waxaana la isla gartay in dalka laga badbaadiyo kooxda magafayaasha ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud. qodobka labaad wuxuu ahaa in aan la aqbalin wax muddo kororsiya oo ay samaysato kooxdaas la degtay shacabka Soomaaliyeed. qodobka saddexaadna waxaa looga hadlay shir weyn oo dhawaan la filayo inuu ka furmo xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo. kulankaas ayaa waayaha kale waxaa qabanqaabinayay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaana la filayaa in 10 ilaa 15 December uu ka furmo magaalada Kismaayo. kulankan waxaa lagu casuumay dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah waxaana la rajeynayaa in halkaas uu ka soo bixi doono war weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo. dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud wararka soo baxaya waxay sheegayaan in hadda uu ku mashquulsan yahay sidii uu u samaysan lahaa muddo kororsi. xasan sheekh rag siyaasiyiin ayuu kala niqaashay qaabkii ay ugu raadin lahaayeen muddo kororsi ugu yaraan 2 sano ah. raggaas waxyaabaha xasan la wadaagay waxaa ka mid ah in uu doonayo in xataa uu isku furto ra'iisul wasaare xamse cabdi barre si loo siiyo isaga 2 sano. dhanka kale xamse cabdi barre waxaa la leeyahay muddo kororsiga xasan sheekh maxamuud uu ka soo horjeedaa laakiin ma aha nin bareerihiisa caddaysan kara. maalmaha kan waxaad arkayseen isagoo idaacadaha taagan oo ku dheggan oo dhaleecaynaya dowladdii kacaanka. waxaa la leeyahay dhaleecaynta kacaankii iyo ka hadalka kaligii taliska wuxuu ugu duur xulayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sababtoo ah wuxuu og yahay haddii xasan sheekh maxamuud loo oggolaado muddo 2 sano ah in isagu uu taas ku bixi doono waana sida dabcan xasan sheekh maxamuud ku gorgortamay. ra'iisul wasaare wuxuu doonayaa baa la yidhi in aan hal maalin oo muddo kororsi ah loo samayn dowladda xasan sheekh maxamuud isla markaana doorashadu ay ku dhacdo wakhtigeedii isaguna markaasi uu noqdo ninka maamulaya. laakiin waxaa wanaagsanaan lahayd in uu geesi noqdo oo idaacadda soo istaago oo uu yidhaahdo ma jiraan wax la yidhaahdo muddo kororsi doorashaduna wakhtigeeday ku dhacaysaa. isaga sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd laakiin xasan sheekh maxamuud xilligan wax dan ah kama laha ra'iisul wasaaraha oo wuxuu doonayaa in uu isku furto markaana uu helo 2 sano oo muxuu ahayd muddo kordhin ah. waan arki doonaa meesha ay ku biyo shubato hase yeeshee magaalada Kismaayo ama maamul goboleedka Jubbaland oo la oran jiray ama kooxda xasan sheekh maxamuud ay dhihi jirtay waynu bedelaynaa oo New Jubbaland baynu aasaasayna maanta xaalku wuxuu joogaa in Jubbaland oo sideedii ah ay badbaadinayso qaranka Soomaaliyeed oo ugu dambayn magaalada Kismaayo looga takhalusi doono xukunka xasan sheekh maxamuud halkaana ay ku saqiirtay New Jubbaland kooxda xasan sheekh maxamuud ee la ordi jirtay. xasan sheekh maxamuud wuxuu u dhoofay dalka Qatar halkaas ayuu joogaa waxa weeye ishana wuxuu ku hayaa waxa ka soo socda magaalada Kismaayo. waxa uu Qatar kala hadlayo lama oga laakiin walwalkii ugu weynaa ayaa iminka haysta. qaab uu buddo u korsado ma garanayo qaab uu doorasho u qabto ma garanayo. waxa weeye howlihii kale uu waday ee ahayd muxuu ahayd golayaal deegaan iyo waxbaan qabanaynaa waxa weeye iyaguna way fashilmeen. xaalkuna ninka uu ugu adag yahay oo dadka maanta ugu nasiibka daran waa isaga. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa Kismaayo marka la isugu tago oo ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay isu tagaan in ay ka soo bixi doonaan halkaas wax ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo oo markaasi lagu badbaadiyo
jamhuuriyadda soomaaliya dabcan dalku wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u adag koox aan ummadda u naxayn ayaana dusha dadka ka saaran wixii ku soo kordha waa idinla socodsiin doonaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu